maadaama inta badan hal abuuradu ay yuusufow ay ama mala awaalaan ama ay ku dhacdo ama ay qof ay ku dhacday ka sameeyaan dabcan baan isiri heestaasi bal horta yuusuf ha ku sharaxo oo weliba sababta aan isku sii weydiiyay ay tahay xagga maansada iyo gabayada mooyaane heesa aad samaysana in badan kuguma arki jirin marka abwaankii hees maanta mar haddii uu sameeyey talow waxbaa jiray bal ha kuu sheegan bismillah alxamdulilah guud ahaan anigu si guud baan sugaanta ugu dhex jiray iyo dhaqanka laakiin caan kumaan ahayn xagga fanka runtiina weli kuma ihi mana xiise iyo kalgacal aan fan u qabayna heesumaan samayn laakiin duruuf baa ila gashay oo duruufaha nolosha marba meel kula gelaya had iyo jeer sugaanta waxa ay macna ku yeelataa marka ay dhacdo leedahay wax sababay ay jiraan ee qiso dabada ku hayso way ka xeel dheer tahay marka mala awaalka iyo adigoo gurigaaga iska jiifa aad abuurayso aad waxaan leeyahay suuratul khiyaalka aad samaynayso sawir maskaxeedka marka aan u soo noqdo qisa ay ku dhacday aniga runtii waya sababtay markaa inta aad weydiisay 2008 ayaa aniga rag kaleba waxna la ka casumay magaalada London waata shir dhaqanka ayaa ka dhacayay oo sugaanta iyo bugaagta iyo waxyaabaha lagu soo bandhigo oo la yiraahdo Somali Week Festival marka urur la yiraahdo kayd markii dambe la baxay marka jaamacadda weyn Oxford baa hawsha wadatay laakiin urur baa imka wali hogaamiye la yiraahdo kayd gabadh baa ka agaasima la yiraahdo ayaan maxamed cashuur marka sanad walba waa barnaamij la qabto barnaamijkaas aniga rag badan oo kale nala ku casumay dabeetana la dhammaan u tagnay waa October 2008 marka barnaamijku 7 casho socda 7 casho markuu dhamaado waa fanta shuruuf al-ardi qof walba magaalada dhinac ka gal baa lagu oranaya waata barnaamijka markuu noo dhamaaday ayaa sida aan sheegay wali magaalada dhinac ka galay dabadeetana magaalada London baan East London meel ay xaafadda iska deganaa ayaan ayaamaha kamida baa waxaan u baahday si checking guud oo caafimaad xanuunimaha bal si guud inaan isu eego maadaama cimilo ka duwan iyo meeshuna aad bay u qaboobay aan soo galay dabeetana nimaanu ehelanahay asxaabna nahay oo dhalinyaro ah ayaan israacnay tareen baanu raacnay xaafad baanu tagnay leeyahdo Fulham waya dhakhtar baanu tagnay dhakhtarkii oo dhiigagii waxba iga qaaday dabeetana jawaabtii igu soo noqday buu yiri waa ka soo baxnay ninkii aan wada socnaa wuxuu igu yiri xaafad halkana ayaanu sii maraynaa waya roob yaroo bushuclo ah oo had jeer Yurub ka da'ana u da'aya oo aan qaadayna roob weyn ahayn waya daladana ma sidana waa soo ilowni gaarina ma wadana waa luqeynayna dabeetana roobkana aad buu noo qooy waya gurigiina waan weyni aad ku socotay aan ku soconayo telefoon baa ninka lagu hagaya waya qof kale wada hadlaya anigu sidii wan iska daba socda ninkan oo kale ayaan ahayo wax meel aan u loo socdo iyo meel kala toona nin garanaya ma ihi adigu baadi doon dheer oo aanu in doora ku daalay aakhirkii gurigii baanu helnay guri bildan weyn oo isku yaalo dabaqa ayuu ahaa waa koray dabadeetana guri baan waxaan soo galnay halkii aan u soconay qol weyn oo fadhiya oo meesha guryaheedu aad bay u yaryar yihiin waa cidhiidhi ingiriiska guri qol weyn oo ayaan soo galnay dabadeetana 2 hablood ayaa jooga 2 hablood baan soo dhaweeyay 2 hablood mid waan gartay aqoon hore oo maan lahayn intii aan ku jiray Somali Week ayaa saxafiyad bay ahaydoo habli wax naga duuduubayay ahayd waa gartay marka iyada waan isku garanay waana taay ninkan kale aan wada socono ay hogaaminayaan telefoonka la isku hagayo dabeetana meeshaan fadhiisanay waana la soo dhaweeyay nala marxabaysiiyay waan xusuustaa waxaan fadhiistay
dhinac kadinkii xaggan gurigu dhinacan dhabarkaygu iga xigaa meesha la fadhiisiyey markaa albaabkii laga soo gelayay dhinacan dadka ka yimaada ka soo gelayeen ayaan dheegiisa fadhiyaa halkaa hortaydana kursi baa yaal in ujeedo loo dhigay inuu iska yaalay ma hubo cabaar meesha markaanu fadhinayo anigu aanan wax badan ogeyn markii dambe aan ogaanayaa soo anaa layla shaqaynaya gabadh baa markaa lay tusaya inan baa lay tusaya weliba inantu iyadu lafteedu war badan ma hayso ana war badan ma hayo waa gabadhaan labadan midna ahayn labadan midna ahayn waa iman doontaa dabadeetana dhowr jeer baan raagsan ku war meeshaan ka tagna de waqtigii oo mayo waa kaasoo dabadeetana inantiiba mar dambe soo baxday waayahay agtayday maraysaa markaasoo kadinka dhinaciisii baan fadhiyaa way dhaaftay kursigii hortayda ayay soo fadhiisatay kursigiisii bannaanaa waayahay been sheegi maayee aniga markaasaa waxaan maqli jiray dabkaa ka tegey markaasaan khadka ka baxay anigu waayahay waxaa jira jacaylka nooc la yidhaahdo ka aragtida la yidhaahdaayo waa sawir maskaxeedka qofku doonayo maskaxda ku sawirtaa noocuu eeg yahay iyo siduu yahay iyo deedna mar unbuu kala dul lahaa dabeetana marka ama xaflad meel baa ku kulmaysaano markaasaad adigu khadkii baan ka baxay gabadhii bal markii dambaan isla yaabay kama jeesto meel kale ma eego sheekadan la wada iyo dadkan waxba kuma darsado inantii masaawo eega dabeetana markii dambaan aniga isiri war dee dad baa baja dadka gala oo waatan dadka laga hadla moogta qaar baa baja dadka ka hadla waa balyeys odhanin dee kani waabu gelayaa bal dhinac kale yar eego in yar baan dhinac kale eega haddana saa waxbaa i wado oo igu soo celiya halkii waa eegayaa uun dabadeetana sidan halkii u fadhiyay dee loox isaga ahaa ayaa mar dambe aan gurigii ka soo degnay ma garanaya xaqatan gooraan ka soo degnay laakiin waxaan garanayaa iyadoo anagoo dhulka marayna oo uu ninkii igu leeyahay inantii ka war goor laakiin aanu soo degnay aad uma xusuusto inantu ka waran ku leeyahay baad ku sii maqantahay markuu igu yiri inantii ka war ayaan sidii qof hurdo ka toosay oo kale ayaa dareenkayga soo noqday markaasaan ku inantii markaasuu de inantii ku hor fadhiday markaasaan ku maxay ahayd inantu marka dareenkaygu markay ila fadhiday nasiibkaygii ayaan ka warwarsanayo wuxuu leeyahay tan oo kale cidla ma joogto oo heli maysida waa la qabaa anaa hoos soo faqaya nasiibkaygii baa rajo xumo markiiba soo qadimay oo wuxuu leeyahay kulli hore loo wadaarag waar ma halkan ma banaane waa anaa isla sheekaysanaya dabeetana waxaan ku yiri inantu maxay ahayd markaasuu de inantii ku hor fadhiday ee saa ahayd markaasaan ku iri dee markaa guud ahaanba qofku iga awood roonaaday waan isdhiibay maskaxiyan baan isu dhiibay dabeedna waxaan ku niyow inantaa iyadoo ilaahay iyada ina jeclaysiyo ina soo raadisa mooyaane anigu si aynu u helayno garan maayo yacni waxaa igu dhacay waa awood ahaan baa lay qabsaday dalab baa kugu dhacay inantii waaba dabeetna meesha waa ka nimi tareenkayga waan soo raacnay xaafadeeda baan ku soo noqonnay ninka markaa maxim buu soo saaraa waan isku dhownaa subaxii baa ninkii u imiyo ku yidhi bal warran markaasuu inanta telefoonkeedii ayaan kuu soo helay telefoonka waa kan dee markaa xamaalo waan xamaalan kari maayee wallayga tahay haygaga bixin markaasuu yidhi wallay ka tahay oo meeshan jaanis badaniba laysuma helo telefoonkii baan seef garaystay waan xusuustaa oo 3 cashaan hayay aanan la hadlinoo waan baqay wax allaale waxaan kula hadlo iyo meelaan ka bilaabo ayaa garan waayay anigoo iska haya telefoonkii oo baqsan ayaa waxaa ila soo hadlay nimaanu saaxiib nahay oo aada runtii saaxiib u nahay oo wariyana ah abwaana ah oo la yidhahdo cali axmed raabi oo cali seeyo cali seeyo waa nin caan ah oo runtii xaggayga ku weyn oo aad nin macquula wa cali markaa wuxuu ka shaqeeyaa t v beryaha shaqayn jiray oo la odhan jiray raad buu wariye ka yahay markaa markii ayaamihii meesha aan tegey waa raggii barnaamijyada naga duubayoo ayuu igula kaftamay oo ugu yidhi haddaad halkan timi reer baanu kuu dhisaynaa
dabeetana wala soo hadlo wuxuu yidhi barnaamij baan qabanayaa waayahay cali sugulle iyo xudaydi iyo maryan mursal iyo kuluc iyo dararamle iyo tiimkaa aan isugu keenaya intii dhimatay ilaahay u naxariistay ayaan isu keenaya haye oo ka warraysanaya fanki iyo hanaqaadki iyo walaalaha hargeysa iyo waa kaa waayahay dee ii kaalay inanna waa ku haya haye dabeedna waxaan waartan kaartaa iska daayo taa cali taasaa labada taa cali baa fududa taa qabo tan ilaahay ku sakhir mooyaan haa tani rajadeedu aniga waa zero markaa waayahay dabeedna haa ma garaacin haye dabeetna waxaan ku war waa ku imanaya haye tareen baan xasto anna markaa runtii waan danaynayba barnaamijka taariikhiyan baan u danaynay meeshii baanu nimiyo barnaamijkii baanu gallayo anna meel baan ka soo galay barnaamijkii iyo sheekadii in bay iga siiyeen dabadeetana barnaamijkii marka ilaa saacad meelaha wadnay ayaa la aanu yar nasanoo shaah iyo wax ku yar dhufano hablaha halkaa soo fadhiya 4 ama 5 waa gartay ayaa halkaa soo fadhiya cali baa ila faqay oo wuxuu yidhi hablaha halkaa soo fadhiya bal iska eeg haye hablii baan eegayoo masaan ku yidhi waa arkaa markaasuu inanta dhexe bal hadda eeg aan eega kaani wallahi waa iyadii iyadu waa tii aan way ku soo noqotay waayahay markaasaan qoslay markaasuu yidhi maxaad ku qoslaysaa markaasaan ku yidhi waxba waa macquul weeye markaasuu yidhi ma la hadallaa markaasaan ku yidhi dee hay la hadal oo hadduu isagu hadlayo aniga maxaa ila anigu hadli maaye way isogahaye ilaa isaga keenay haa isagaa hadlaya dabeetana maalintaa horena inanta dee waxba umaanaan sheegin waa la wada hadlay ninkii i wadaynaa isaga laftiisa mashkilad baa ku dhacdayoo wuxuu doonayay dee nin abwaanaho sidan waxaa ma aaminsanaa inuu sheekeeyo oo dadka ka qosliyo oo dee uu iibiyo oo aan is iibiyadii adigina danan baa ku helay haa oo uu hadhowta yidhahda ninkaan waday alla ninkaasi nin sheeko wanaagsan buu hayo naga qosliyo nin cajiiba buu hayo waxaa la yidhaahdo oo yidhaahda dee ninkaasaan waday anna wanigii looxa noqday dee khadkaba ka baxay wanigii khadkaba ka baxay waa tahay oo maantaana isbarasho mooyaane wax kale meesha ka xataa si wacan laysuma baranin oo aniga baa meeshii dee dayacay cali iyo dabeetana isagu sidiiba noqon intuu markiiba u yeedhay awr waa ku doonaynaa wadnigu markaa cali seen iyo sidii waxaan is weydiiyey ma warkaagu sii maqlay dee walla iga tahay inaanu wax dareena naga hayn ilaahunbaa isku beeray xataa ta dhexe buu ku yidhi haa waa marka horeba iyadu isaguna inuu kaaminay haa laakiin sheekadan inaan hore u soo maray wax dareena kama hayn dee markaa hadalkii baa lagu hortu meesha marayay taa ilaahay oo inoo jeclay haa ishaaradii baa moodaa in wax ka suura galeen cali dabeetana markiiba wuu yeedho wuxuu ku yidhi waa ku doonaynaa hayo dabeetana wuxuu ninkan ilaa iyagu wasgaranayaane ninkan baanu kuu doonaynaa dabeetana waxay ku tiri debal waa yimka hawl baan ku jiraayo habeenkii israacnayo wala casho tagayo dabeetana habeenkaasna si wacan la isu bartayo markaas la telefoonada dib loo kala qorto kii hore shaqay waayay kii hore haystay kii ma shaqaynayo markaas la telefoonada dib loo kala qorto markaas dabeetana markaasaan habeenka dambe ayaan dhiiraday horta la hadlay dabeetana telefoonka marka wada hadlay Yurub way iska dhib badan tahay sida loo kulmaa dabeetana way la balantay waxay tii ana gaari wato ku soo maraya way soo martay dabeetana guriga xaafad baanu tagnay habeenkii halkii baanu cabaar ku sheekaysanay halkaana mashkilad kale ka dhacday oo xaafadaasoo iyadana waxaan ugu tagnay laba hablood oo kale oo mid tahay tii maalintii hore aan u tagay hadalba intaanaan sooran yaa dhowr nin oo dhalinyaro ah oo qaadsita noo yimaadeen xaafadii guriga baa buuxsamay dabeetana mid baan ku yidhi nimankan iyo sida chance loo helay waxay tii nimankan way naga tegayaan gurigu chance iska yeelay soo nimankan mashkiladani haysata iyagana haysato oo way ku aguureeyay mid kale oo kuwan ka mid ah ayay iyaguna ku buuxaan oo niman tegayaba ma baahaba markii dambaan arkay inaan waxba tegin baan ku yidhi hadba aniga fasaxo markaas annagii meel kale naloo xawilolaya idinku xaggaa kale tagoo ku sheekaysta yaa ilaahay garanaya dabadeetana adigu habeenkaas bay noo ahayd baan filayaa habeenkaasay noo ahayd kula saxa intii dambe telefoon baan ka wada hadalay dabeetana adigu inantii wax macquula bay igu tidhi waxay igu tidhi deniyow horena isumaynaan aqoon
dalkana dee fiisaad ku timi oo fiisa 6 bilood ayaan ku imi markaa dhowr bilood bay iga tagtay waqti iyo aqoon iyo isbarasho ayaa muhiima tiina dee waa adag tahay oo dee ninkaa socodkaa baa tahay dee markaa baal xidhiidhkanu ha iska socdo laakiin iminka go-aanan ku siinaya ma jiro sidii baan adigu dabeetana xidhiidhkii dabeetana sidii baan kaga soo dhoofay waaya dabeetana halkan baan imi haye halkan baan dabeetana mar dambe ayaa haddana telefoonkii xidhiidhkii wixii laysiiyey adigu haddana mar dambe waan xidhiidhnay markaa saasaa heestu ay ku timi ay horta ku timi waxaanu ka hadlayaa xaaladii aan la kulmay aad iyo aad iyo inantii oo aan ammaanayo dabeetana heestu waxay odhanaysaa sidii dahab lumay ku dayday sidii dayaxana ku daawaday labadaa erey waxay u dhigan yihiin daydayguna waa gurigii aanu raadinaynay aad iyo aad haahee aanu la-ayna weliba roobkuna na helay aan mushkiladaysnayn aad iyo aad oo waa bilowgii u horreeyeyba yaanad xataa iyada arag aan xataa iyada arag baad adoonka nagu dhacay waayahay sidii dayaxana ku daawadeedana waa hor fadhiga sidii ii hor fadhiday haddii aan uga jeesan waaye aan meel kale eegayay ayaan ka hadlayaa waayahay sidii dayaxana ku daawaday sidii dal la helay daruuru egeey dawliilka quruxdaad haween ku disho dareen kalgacayl dhulbay damqado dabaylo jacayl anaa la darsay daaliyo socod baan degmada ku imi ku doortay ahay dardaar warin labadaasina waxay u dhigan yihiin dee ninkayga hargeysa ka dhoofay ingiriisiga 12 saacadood baan sii saaran diyaaradda waayahay daaliyo socod baan degmada ku imi yaan degmada ku imi oo dee daal nooma harsanayn aad iyo aad ku doortay ahay dardaar warinna dee adaan ku doortay dardaar warintuna waa taa dee mar haddaad noqonaysid dee waad noqonaysaa yar wadid rajadii baa yar waayahay beydkaasi ka kalena wuxuu ahaa dooxaa la miraa darmaan ugub deegaanta gugii la doograac daaliya ubax waa la daawan jiray dalkiiya waan aqaan dadkii goba oo inanta reerkooda iyo ilaa aabaheed qoyska dee aad baan isu garanayn dookh iyo sharaf baan dunkuugu xidho dawiya male baan la dayn karin labadaa marka sameeyey baa yarka fu-aadigu yidhi way gaabantahay mid saddexaad ku dar markaasaa yidhi dooyiya sahan baan haldhaa u dirtay dooyadu waa colku markuu ilaalo dirto aad iyo aad dooyiya sahan baan haldhaa u dirto daa-uuska mar baan dardaaran faro durbaanka jacayl dan baan u tumay daymiya calaf baan ducana ku ladhay duntii boqor baan dushaada sudhee dalxiiska hadmaynu daashoon horta heestu taas bay ahayd taasay ahayd qisadaasna saasay isku leeyihiin way ku soo baxday heesta haddaba iyada lafteeda samaynteedii ayaa iyadana wax kale igala kulmeenoo 2011 baan sameeyey waayahay anigu markaa iskaga tegayba oo dee nin hees iyo warba u haya maan ahayn waxaan tegay meesha la yidhahdo Dubai waayahay 2011 haye hudheel baan ku tegay waayahay nin labadeeda abba walaaliyeen oo Canada ka soo guuray yaa ii yimi haye wuxuu yidhi hudheel ka soo baxo gaadhu wata gurigiisii cojmaana buu geeyey waayahay dabadeetana gurigeena oo ku caweynanaba gabadh Canada ka timi oo baayac mushtari oo ay xaggaa isku ahaayeen gabadh weyna ayaa la sheekaystay oo gabadhii baa 2 bayd oo hees ah ayay tirisa waayahay qisadii labadaa bayd haye si wacan baan u garanaya iyo cidday khusaysaba waxay tidhi sidii dahab lumay gabadh baa tidhi sidii dahab lumay u daydayayo dantayda ku seegay daansho waxaa la yidhahdaa cabdi xaaji ismaaciil reer cadmeedkii buu ahaa haye aabihii iyo aabbahay saaxiib bay ahaayeen waayahay waa afartanaadkii eeriya meelaha waayahay wuxuu ahaa nin qurux iyo xarago ilaahay u dhaliy oo meel isu taagay cadan na xilligaa waa xilligii aroosyada iyo gaafafka iyo dhoola tuskay ahay dabeetana hablii cadmeed oo dhami daanshood ayay tartan u galeen waayahay inan waliba waxay damacday inay soo gacan gelisaa ninkaas waayahay dabadeetana gabadh waliba wixii ay islahayd waad ku hanan karaysaa samaysa ayay soo bandhigtay marka inan hablihii ka mid ah oo aan filaya tii markii dambena ku guulaystay inay tahay ayaa labadan bayd tiri sidii dahab lumay u daydayayo dantayda ku saagay daanshood daanshood markaa waa magaciisii jumladiiba waa dhanta
halkan imika xanuun u yaalaayo ilaahay caafiya aan dhowr jeer ku booqday wareeraan aad isugu xidhannahay oo xataa dhalashadaydii sabab u ahaa dabadeetana beydkaana halkaa ayaa ka soo amaahday oo waxaan u caddaynayaa inaanan lahayn inaan sheego wax xilli hore waa dhowr iyo 40kii kontonaadkii meelaha weeye xilliga qisadu dhacaysaa wehelkudhig hore u baxay qisadaasi sidaas ayay ahayd Yusuf su'aal waa ku laaban yiinoo aragti dambe iyo su'aal hadii aad kullaytabaha inta badan dadku dhacdaday ka warrama intii la soo dhaafay maxaa dambeeyay marka waxa dambeeyay iyana oo kala cajiib ahayd imika bishan aynu ku jiraa tii ku xigtay bishii 8aad imika ka dhamaatay bilowgeedii ayuun baa subax anoo hotelka Imperial aan fadhiisto uma ka soo baxa waayahay kaadinkuun baa gabadhigu salaanta Yusuf iska warrano saasu maanu eeg gabadhii kaaname wallaahi waa inantii ingiriiska oo hargeysa joogta oo dahabkii la helay dabadeetana tin iyo cirib ayaa horta jidhidhac igu jabta waayahay oo bahal farxadahoo cajiiba waxaan maqlay baalka xoorka la yiraahdo ayaa wuxuu jecel yahay had iyo jeer malabka iyo waxaas uu jecel yahay dabeetana waxa la yidhi dudun malabahoo dhacday yuu helay waayahay dee waa waxaan weligii ka yaqaafayn bahal qosol ku dhufta soo siduu u qoslayay ee u faraxsanaa yuu eryadiiba ka fogaaday hadhow bisul ku noqosaa waa waayba anigana subaxa markii aanu salaanay ayuun baaba gaadhina ku soo qabta dabeetana annagoo aan waxba soo dhan oo telefoon isweydiin ayuun baaba qof ehelkoodii waliba waalid u ah baba gaadhay waxaan xasuustay heestii magool qaadi jirtay duhurkii shalaytana dunidaan dhib waayine warqadii la soo diray durbadii aan furfuray bay dadkii igaga kadiyeen Yusuf hadana dahabkii gaari dib u raac dabadeetana adigu halkii ninkayga faraxsanaa haddana anuu cagajiida ka soo noqoy ayaan ka tegey dabeetana nin baa ila soo hadlay ugu yidhi waranaha ku haya telefoonkiyo soo hudheelka abay degan yihiin iyadii habla kale adag joogteen hotelkan aan joognaa laakiin markaan uma ogi adigu markii dambe inay joogaan baan ogaaday hudheelkii degan yihiin dabeetana halkii baan ugu imi dabeetana iyadii tiim kaloo hablay wada socdeen ayaan casumay oo hudheel geeyey dabeetana habeenkii halkii baan ku sheekaysanay dabeetana waxaa la yidhi dee wallaahi waa ka xunnahay waqtiga badankiisii burcaan ku soo qaadanay imanka socodkii dambe ayaan ku jiraa dabeetana waxaan ku yidhi waayo waxoogaa hadiyadaan idiin keenayaa dabeetana buug qisadii cilmi boodhar laga qoray jacaylka ahaa oo hadiyada weli mawduuca halkayga baan ka hayaa hadiyadii halkaa gelaysay baad u doortay sidaasaan markaa ku kala aanbabaxnay laakiin aniga wax badan culays badan iga degay oo aragtidaas iyo sheekadaa dambe ay culays badan runtii iga rogtay bila tacab baad ku aragtay oo dee bladhan waan jabaye bladhan waxaan ku jiray waxaan xasuustay heestii kaariye allah ayaa u dhib badana adoo dhoofay caashaq dhul shisheeye kaa hela taasaan ku jiray oo kaariye alhabaan filaya mawdku waad ku samirtaa mayada waad ku dharagtaa murankuna sida weeyaan مشقة وترى كله روح ملفو كاجنا مركا ما عادي وحالات درين كاسو كله مركا هرت قصة يدو قصة النوع عاسة هاي يوسف بل هذا بقى هرتو هيس كاس أي دقيستياشة إسقالا إذا ما الله بل عد اللحن كسرت يعد قاضي صورته نوشين أنت نود دقيس وحن أودي بينك اللي هذا دنيا هرتو قليها فنكا aqoon badan sumaanaan lahayn waayo ma fiilan ku jiray ma ahayn markaas aad marti u noqoto markana duruuf ba iga keentay oo gooraan heesaba ismaan ogeyn haya lagu heliyay ilaa waxaan dareenkana ka soo goynaya wax meelo badan oo aanad mari jirin buu kula maraya marka nin leeyahay Mustafa Kiiko ayaa la xamiyay waan saaxiibnahay oo runtii isaguna aad ayaan u dhiibay ninkaas dabeetana isku hawlay isna dabeetana ninka leeyahay Fuad Umar Abdi Fuad Umar yare oo iyaguna ay saaxiib yihiin annaguna halkan aan ku saaxiibnay ayaa isaguna markii dambe uga dambeeyay nin leeyahay Cabdirashiid Cali Xamari yaa isaguna jira oo rag isaguna qaybta ka qaataya saasay markaa bahashaas waa taabaynu leenahay dhageystayaasha heeskii dawo iyo malab
dhegeysi wanaagsan. sidii dayaxana ku daawaday sidii dahab lumay ku daydayay sidii dayaxana ku daawaday sidii dal la helay daruure dawlalkii quruxdaad haweenku disho dareenka gacayl dhulbay damqado tabaylo jacayl anaa la darseeyey dareenka gacayl dhulbay damqado tabaylo jacayl anaa la darseeyey daliyo socod baan degmada ku imi daliyo socod baan degmadan ku imi doortaye ku doortaye hay dardar warini doortaye ku doortaye hay dardar warini